لماذا خلقوا تونس؟ لماذا خلقوا ليبيا؟ لماذا خلقوا الجزائر؟ لماذا خلقوا سوريا؟ لماذا؟ لكي تبقى هذه الأمة مشلولة. awoodda keliya ee aan isku difaaci karno waa midnimo carbeed. sidaasi awgeed waynu u midoobi kuwa raba inayna dullaystaan, ama waxaynu mari doonnaa waddadii ay mareen hindidii cascasayd. oraahyadani waa qaar ka mida oraahyadii hadalhayska u ahayd korneyl mucamar al-qadaafi, oo inta badan lagu tilmaami jiray inuu ahaa hoggaamiye keligii taliye ah, hal adag, jeclaana inuu ka dhabeeyo hamigiisa. تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتشنق قرايصها وإحنا نتفرج عليهم ونضحك. halka dhinaca kale ay jiraan dad badan oo u arka Qadaafi inuu ahaa nin halyey ah oo ka soo horjeestay damaca ku qotoma gumaysiga ee ay wadeen reer galbeedku. muuqaalkeenna maanta daawadayaal waxaynu dul istaagi doonnaa taariikhda Qadaafi, sidoo kalena waxaan aad ugu falanqayn doonnaa su'aasha ah Qadaafi ma wuxuu ahaa keligii taliye mise wuxuu ahaa halyey ka soo horjeestay damacii reer galbeedka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كستا وددكو بدنا أجرن أجيهن قدافي هدنا مجلس أو دميستراني وحوها معمر محمد أبو منير القدافي وحو كل شيء سنة كي يكون سقال بقول أفرتني يلبدي حافظ قصر أبو هادي مقالة السرت أو كتال لما دقان كتريبولي قلبات كالليبية وحونا كل شيء قيست جباديها حلقي ويرانا وحو سحرها السرت. Qadaafi ku raaci jiray xoolaha sida geela iyo ariga. waxbarashadiisii horena waxay ahayd mid ku dhisan dhaqanka diinta Islaamka, isagoo ku soo xifdiyey baadiyaha magaalada Sirt Quraanka Kariimka ah iyo fiqiga. kadibna waxa uu u soo wareegay magaalada Sirt si uu u dhigto dugsiga hoose, wuxuuna ku gudbay Qadaafi 6 fasal muddo 4 sano gudaheed ah. sidoo kale inta lagu guda jiray isbuuca wuxuu seexan jiray masaajidka si uu subaxa horeba ugu kallaho iskuulka, halka isbuuca dhammaadkiisana uu Qadaafi socon jiray 32 kiiloomitir si uu u soo booqdo waalidkiis oo deganaa baadiyaha fog ee magaalada Sirt. sidoo kale waxbarashada dalka Liibiya oo aan ahayn xilligaasi mid bilaash ah awgeed, Qadaafi aabihii wuxuu ku dadaali jiray sidii uu ku keeni lahaa qarashaadka iskoolka ee uu wiilkiisu u baahan yahay, iyada oo ay haysatay duruufo dhaqaale oo aad u liita. waxay muddo ku noolaadaan magaalada Sirt. Qadaafi iyo qoyskiisii waxay u guureen magaalada Sabha ee gobolka Fezzan oo ku yaala koonfurta dhexe ee Liibiya, halkaas oo uu aabihiis ka ahaan jiray hoggaamiye ama kaaba qabiil, halka Mucammarna uu dhiganayay dugsiga sare. markii uu koray Qadaafi wuxuu arkay oo uu ku indhadilaacsaday dhacdooyin la taaban karo oo ruuxay dunida Carabta, oo ay ku jireen dagaalkii Carabta iyo Israa'iil ee dhacay 1948, kacaankii Masar ee 1952, dhibaatadii kanaalka Suways ee 1956, iyo jiritaankii muddada gaabnayd ee Jamhuuriyadda Imaaraadka Carabta ee loo yaqiinay UAR, taasi oo jirtay intii u dhaxaysay 1958 ilaa iyo 1961. Qadaafi wuxuu aad ula dhacay isbeddeladii siyaasadeed ee laga hirgeliyey Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar. isbeddeladaasina waxaa hoggaaminayay hoggaamiyihii uu Mucamar al-Qadaafi ku dayan jiray ee madaxweyne Jamaal Cabdinaasir. kadib qabashadii talada dalka Masar ee madaxweyne Jamaal, waxa uu u dooday qarannimada iyo midnimada Carabta, wuxuuna diiday gumaysigii reer galbeedka iyo Sahyooniyadda. wuxuu sidoo kale diiday madaxweyne Cabdinaasir in laga gudbo nidaamka ra'smaaliga ah ee ay dadku wax ku yeelanayeen loona gudbo nidaamka shuuciga ah ee hanti wadaagga. Qadaafi waxa saameyn ku yeeshay bog ka mid ah bug uu qoray Jamaal Cabdinaasir, boggaasi oo uu ku tilmaamay falsafadda kacaanka iyo sida loo bilaabi karo afgembi cusub oo guulaysta. dhanka kale mid ka mid ah macallimiintii ka soo jeeday dalka Masar ee waxbarayay Qadaafi, laguna magacaabi jiray Maxamuud Efey, ayaa la sheegay inuu la dhacsanaa fikradaha siyaasadeed ee dhalinyarada, wuxuuna kula taliyey Qadaafi haddii uu rabo kacaan guulaysta inuu u baahan yahay xeelad iyo khibrad dagaal iyo sidoo kale taageero ciidanba. Qadaafi isagoo weli ku guda jira dhigashada dugsiga sare ayuu abaabulay mudaharaadyo, wuxuuna qaybiyey boorar lagu dhaleecaynayo boqortooyadii ka jirtay dalka Liibiya. bishii Oktoobar 1961 wuxuu hoggaaminayay Qadaafi
mudaharaad laga soo horjeedo in Suuriya ay ka go'do midowga Carabeed ee UAR ama loo yaqaanay United Arab Republic. mudaharaadkaasi kadibna waxaa la xiray Qadaafi iyo 20 kale oo arday ahaa iyadoo lagu eedeynayo khalkhalgelin amni iyo xadgudub hanti shacab. Qadaafina waxay mas'uuliyiintu ka eriyeen isaga iyo qoyskiisiiba magaalada Sabha, waxayna u guureen deegaanka Misrata, halkaasi oo uu Qadaafi ka sii watay dhammaystirashada dhigashada dugsiga sare. isagoo ilaashanaya xiisihiisa ku aadan dhaqdhaqaaqa wadaniyadda Carabta, wuxuu iska diiday Qadaafi inuu ku biiro mid ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee la mamnuucay ee ka howlgeli jiray magaalada Misrata oo ay ku jireen dhaqdhaqaaqa wadaniga Carabta, xisbiga Baxath ee hantiwadaagga Carabta iyo ururka Ikhwaanul Muslimiin. wuxuuna ku andacon jiray inuu diidan yahay ku biiridda kooxo uusan hubin mustaqbalkooda dambe, wuxuuna si quman u akhrin jiray mawduucyada iyo dhiganayaasha uu qoray Jamaal Cabdinaasir. wuxuu kale oo uu darsi jiray kacaankii Faransiiska ee dhacay 1789 iyo sidoo kale shaqooyinkii iyo dhigaaladii ay qoreen xildheerayaal Carabeed iyo ajaanib isugu jiray sida xildheerihii siyaasadda Suuriya Michel Aflaq iyo taariikh nololeedkii Abraham Lincoln iyo sidoo kale taariikh nololeedkii Mustafa Kemal Atatürk. Qadaafi wuxuu muddo kooban ku bartay taariikhda isagoo ka bartay jaamacadda Benghazi oo ku taala magaalada Benghazi ee dalka Liibiya ka hor inta uusan ka tegin oo uusan ku biirin ciidanka dalkaasi Liibiya. inkasta oo uu haystay darajo sare oo dhanka bilayska ah, haddana sanadkii 1963 waxa uu tababar ka bilaabay akademiyadda militariga ee Royal ee ku taala Benghazi, isaga oo ay weheliyaan dhowr saaxiibadiis ah oo ay isku fikrad ahaayeen, iskalana yimaadeen Misrata. sidoo kale xilligii ay Liibiya ka jirtay boqortooyadii uu maamuli jiray boqor Idriis, waxaa ciidanka dalka Liibiya tababari jiray Ingiriiska. Qadaafina kumuusan qanacsanayn tababarka Ingiriiska maadaama uu u arkayay in Ingiriisku ay tahay boqortooyo ku caan baxday dulaysiga iyo gumaysiga. wuxuuna sidoo kale si dhab ah u aaminsanaa Qadaafi in uusan Ingiriisku u hagarbaxayn ciidanka dalkiisa oo uusan u tababarayn si buuxda oo ay daacadnimo ku jirto. sanadkii 1964 Qadaafi isagoo wata koox kaadiriina oo isaga u daacad ah ayuu aasaasay ama yeegleelay golaha dhexe ee dhaqdhaqaaqa saraakiisha xorta ah oo ahayd koox kacaan ah oo uu ugu magacdaray Jamaal Cabdinaasirkii Masar xukumi jiray. kooxdan waxay u kulmi jireen hab dhuumalaysi ah, waxayna u shaqayn jireen sidii unug ciidan oo qarsoodi ah oo kale. sirdoonka Liibiya oo arrintan kor kala socdayna ahmiyad saa u weyn ma siin, oo uu iska indhatiri jiray hawsha uu Qadaafi waday, iyaga oo u arkayay inay tahay khatar yar oo aan u baahnayn in la isku mashquuliyo. bartamihii sanadkii 1966 Qadaafi waxay dowladdii Liibiya tababar dheeri ah ugu dirtay dalka Ingiriiska, halkaasi oo uu ku soo qaatay barashada luqadda Ingiriiska iyo farsamada signaalada ama raadaarada ay ciidamada cirku adeegsadaan. sidoo kalena wuxuu ahaa da'yar adag oo aad uga yaabsaday ajaanibtii tababaraysay, waxaana hiwaayad gaara u ahaa akhriska iyo kubadda cagta. markii uu dalka ku soo laabtayna wuxuu ku dhaqaaqay sidii uu ficil ahaan ugu bedeli lahaa riyadii uu lahaa iyo rajadii uu muddada dheer ku taamayay oo ahayd sidii uu talada dalka Liibiya ugala wareegi lahaa boqortooyadii dalkaasi ka jirtay. ugu dambayn, Muammar al-Qadaafi ayaa la wareegay hoggaanka Liibiya 1 bishii 9 1969 kadib markii isaga oo hogaaminayay koox dhalinyaro ah oo ka tirsanaa saraakiisha ciidanka Liibiya oo ka soo horjeeday xukunka boqor Idriis ay afkambi aandhi ku daadan kula wareegeen Liibiya. kadib markii uu boqorkii xukumayay dalkaasi ka cararay, Qadaafi wuxuu laalay dastuurkii hore ee dalka, wuxuuna aasaasay jamhuuriyad uu ugu magacdaray Jamhuuriyadda Carabta ee Liibiya, iyada oo uuna halkudhig uga dhigay xorriyad, hantiwadaag islaami ah iyo midnimo shacab. kadib markii ay xukunka la wareegtay dowladdii uu hogaaminayay Qadaafi, sannado yar kadibna waxaa bilowday hab lagu maaraynayo dakhliga guud ee waddanka, sidoo kalena kor loogu qaadayo tayada waxbarashada, daryeelka caafimaadka iyo barnaamijyada guurka iyo guriyeynta si sare loogu qaado tirada shacabka dalka Liibiya. sidoo kale Qadaafi markii uu xukunka la wareegay
wuxuu bilaabay kala shaandhaynta siyaasadda gudaha iyo tan dibadda, isagoo bilaabay horaanba inuu waddamo cusub xiriir iskaashaan buuraysi ah la yeesho, halka kuwo kalena uu guud ahaanba u jaray xiriirkii diblomaasiyadeed. isaga oo aan muddo badan jooginna wuxuu la soo baxay karti iyo geesinimo aan lagu arkin hogaamiye kale oo Carbeed. Qadaafi wuxuu si aad ah ula dagaalami jiray reer galbeedka, isagoona inta badan khudbadihiisa ku weerari jiray reer Yurub iyo Mareykanka, halka dhinaca kalena uu ku gubaabin jiray Carabta iyo Afrikaanka, isagoona oran jiray weedhiisii caan baxday ee ahayd u midooba damaca iyo dulmiga gumaystaha si aad uga xoroodaan dulaysiga. Qadaafi muddadii dheereed ee uu haystay talada dalka Liibiya wuxuu awood u yeeshay ka curinta Liibiya nidaam maamul oo xasilooni ku dhisan. Wuxuu ka hirgeliyey mashaariic isugu jirtay horumarin iyo kobcin bulsho, wuxuuna dhidibada u laabay damacii reer galbeedka ee uu rabay inuu ku maamusho dalkiisa Liibiya, taasoo ka dhigtay Mareykanka iyo reer Yurubba kuwo aan qarsan cadaawadda ay u qaadeen Qadaafi, waxayna ula dagaalameen si kasta oo ay u arkayeen inay ku dhibaateyn karaan. goor dambana Qadaafi waxaa saameeyey kacdoonkii guuga Carabta ee dhacay sannadihii 2010 iyo 2011 kadib markii koox fallaaga ah oo ka curatay dalka Liibiya ay dagaal la galeen Korneel Muammar al-Qadaafi, iyagoo adeegsanaya kacdoono shacab taageerana ka helaya reer galbeedka. in ka badan muddo 40 sano ah oo waddanka Liibiya uu madax ka ahaa Qadaafi, ugu dambayn 20kii bishii tobnaad sanadkii 2011 ayuu ku geeriyooday gacanta fallaagadii la dagaalamaysay. زيدوا علينا ناس ثانية زوز خوت الزفقري بيموتوا تو والحكومة وينها. ku dhowaad 10 sano oo uu mutan yahay Qadaafi, weli Liibiya ma helin hogaamiye samata bixiya. waxay noqdeen dadkeedii kuwa daruufo iyo dagaal la daashadeen. qaybtood waxay noqdeen magafayaal baadigoob ugu jira qabashada qof walba oo ay ku arkaan saxaraha iyo duurarka dalkooda. qaybtoodna waxay noqdeen fallaago aan diin iyo dad toona aqoon, cagtana marinaya wax walba oo ka hor yimaada maato iyo xoolaba. Korneel Muammar al-Qadaafi Ilaahay ha u naxariistee waa hubaal inuu lahaa sumadihii iyo dhaqamadii ay caanka ku ahaayeen keligood taliyayaasha qaaraddan Afrika, laakiin haddana waxaa hubaal ah inuu ahaa hogaamiye laab furan oo aan ka gaban runsheegidda si walba oo ay u qaraar tahay. wuxuu ahaa hogaamiye hadalla badan oo uu dhihi jiray intii uu noolaa dadku ay u fasirin jireen inuu yahay nin waalan oo aan waxba laga qorin, wixii afkiisa ku soo dhacana iska sheegaya. laakiin markii uu dhintay waxaa rumoobay digniino badan oo uu ka sii digay, waxaana waaqac noqday waaqac uu shalay sii arkayey laakiin la dhayilsanayay. haddaba adigu daawade sidee u aragtay Qadaafi? maxaad si ka aaminsan tahay? nagu reeb jawaabta su'aashan komentiyada hoose ee muuqaalkan. لو يبقى مليون عربي حر يكفي، لو يبقى مليون عربي حر يكفي، لو يبقى مليون عربي حر يكفي.